Dagoble sida loo ogyahay waa tii shil noqnoqday uu ka dhacay oo halkaa Daystar kii ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay deegaanka Dagoble oo beel ka mid ah beelahaasi ay weerar ku soo qaadeen dabadeedna dowladda Soomaaliland niman wasiirada ay soo dirtay oo arrinkaa xalliya wasiiradaasi markay yimaadeen ayaan la hadalno waxaan ku nidhi haddii ay iskooda isu maageenna iyagii jirtaa deegaanka haddii la isku hayana deegaankala wax xogkuna oo aad ka gaari kartaan oo aanan anagu ogolaanin ma jirto dabeedna markii hawlihii adigu muddo la joogay ayaa naloo yeeray haddii aanu nimina waxaanu nidhi dhulka kan dagaaladu ka socdeen la isku hayo annakaa leh nimanka kani waxaanay ahayn bay isku hayaan wixii dalkaa ka baxsan wax ku kala dhaha laakiin dalka iyaga annakaa leh annakaana taladiisa leh ciidna uga marti ugama nihin waa gartay wasiiradii fariintaas fartee marka jawaabtiidii siiyeen maxay noqotay jawaabtii ayna siiyeen waxay noqotay inay yidhaahdaan arrinka laga hadlayaa lagu wada hadalsiinaya waa dalka oo kasoo qayb gala dabeed aydafayn baanu nimi waxaanu yidhi dalka cidna kala hadli mayno cidaanu kala doodaynana ma jirto cidaanu waxuga ogol lahayna ma jirto dalka iyaga annakaa leh iyo wixii khasaare kala gaaray idinka u xilsaaran laakiin nabadayn iyo nabadaanu ka qayb galaynaa ma jiro haddii aan hal laga gaadhin nimankaa in laga raro dalka iyaga waa gartay marka shirka hadda socdaa xaguu maraya shirkii socday intii aanu joognay hadda 3 maalmood baanu joognay wuu soo gabagaboobo maanta marka caaqil go'aanada maxaa ka mid ah meesha laga soo saaray waxa ka mid ah wixii iyaga khasaare ay kala gaaray waa loo kala xukumay waa gartay laakiin deegaanada tan markii la isku hayay oo u muhiimsanaa ceelka Dagoble oo ay dhisteen niman isaaqoo degeen waxaa lagu amray deegaanka in la burburiyo wixii dhismo ahaa ee deegaamaynaha ee ay sameeyeen wax raada oo deegaamayna oo laga ogol yahayna ma jiro muddo ugu dambayn 10 bisha dambe 10keeda loo qabtay haddii aanay la burburin oo waxaa la fufujinna ciidankaa lagu amray in la dumiyo labada beelood oo habar jeclo iyo Sacad Yunuska meesha isku dilaya haddii aad tagteen oo aad tiraadaan dhulka annaga ayaa iska leh maxay yiraahdeen anagu labadii heeray islaayay baha iyo dabays lama hadlin laakiin waxaan la hadalnay habar jeclo aan baha ku jirin iyo habar Yunus oo aan ku jirin Sacad Yunus waxaanu dalka iyaga annagaa leh waanuna u nimi waanuna rabnaa cid allaale iyo cid aan wax uga ogol lahayna ma jiro waa wargelin toodina dhex maraysa iyo hadal aadna hadda jawaabaan idinka rabnaa ma jiro dabeedna sida baanu uga dhaqaaqnay maamulka nimankii wasiirada ay meesha joogay baana arrinka aanu anagu kala hadalnay dad shiciba oo aanu la garnaqsanay ama la doodnay tootali haba yaraatee ma jirto caaqil Garaaslemaan Garan Maxamed oo shir jiraayad qabtay wuxuu dhaliilay qaabka aad u gasheen oo ku tilmaamay waa hab jiricsanaana iyo qaab ay simadu u hadleen oo ku tilmaamay inaysan kaba hadlin dhulka marka qaabka aad u tagteen iyo meesha aad u tagtaan iyo hadalka uu garaadka yiri bal taana garaadku wuxuu ahaa nin waayeela oo inta caafimaad buu joogay imaaraadka war حقيقة أنا مغرلين أنا قاعد في العسنة وما تجين ثلاث العسنة لما تجين أنا قاعد يعيد على بعض واسكت أصلي فأنا نقام بسنين بان ماشى الله تقنو وديبني عيد شيء ما هو أنا لا قدر سمايا من الله ضدني مشكلين هذا الكل حنا أنا جاي مامل كسماري لان ما في تنبيه هذا الكيك يقارن ذي وبيني وسيرة أنا كشف من
baanu wargelinay wax labada beeloodba jawaab idinkama rabnaan ayaana ku idin wargelinay hadalkaas idin geli waayo wixii dambe nala gudboon baan u gudbaynaa laakiin hadal dambe iyo doodaanu halkaa ka gelaynaa kanaanu rabnay ka hadallayna horaa looga hadlay wuxuu ahaa haddii xusuusayay garaadku shirkii darada weyne ee nabadaynta qodobadii lagu haystay buu ahaa ee maxamuud garaad iyo beelihiisa markaa ay ku heshiiyeen marka tii umaana anagu qaadnay markii dada shicib un bay ahaayeen laakiin hadda waxaan la hadlaynay maamul buu ahaa maamulkiina wuu ku qancay hadalkayagii iyo ficilkayagiiba muxuu noqonayaa maanagu rajadaan waxa weeyaan amarkiina wuu dhacay waana go-aan aan ka noqosho lahayn muddada loo marka waa arrin fulintiisiina ciidamadaa lagu amrayba dad shiciba wax laga sugayaa ma jiro haddii ilaa bisha dambe 10keeda la burburin waayo waxaa ciidamada amar lagu siiyey inay fuliyaan marka wax hadalo iyo muran iyo dambe oo daba yaalaaba ma jiro waayo haddii xitaa meeshii la burburiyo oo la yidhaahdo waa laba degaan waa xoolo daaqsimeed mise beesha dhulbaante xaggaa degaysa meeshan ceelka ah adeero haddaad og tahay degaanadaasi waxay hoos yimaadaan maamulayaal degmada xudun ceelkana waxaa maamulaysa wakaalada biyaha ee degmada xudun matoorana waa la saarayaa taangi biyoodna waa loo samaynayaa marka warkeedii sidaasuu ku dhammaaday waa gartay laakiin xaggan deegaamaysiga ah maadaama nimankan ay meesha cidladaba ay kusoo durkaan sooma habboona in dadkii meeshii xitaa la geeyo oo dad lagu abuuro waxa weeye tallaabada u horeysa waxa weeyaan horta ceel wixii la burburiyo hore ee ay ka dhisnaa dabeedna wakaalada biyaha uu la wareegto ceelka iyo matoorka iyo taangigaba ay maamusho qorshe ahaana waxay hoos imanaysaa wixii dambe degmada xudun aad baad umahadsantay caaqil aad iyo aad baad mudan